guusha waxay noqon kartaa waddo kelinimo iyo cidlo badan, waxay noqon kartaa waddo dhib badan, waddo adag ayay noqon kartaa. guusha qof waliba ma lahan, kuwa dadka u raaca sidii idaha oo kale, kuwaasi ma ogaan doonaan weligood shakhsiyaddooda dhabta ah. keliya kuwa raaca ee mara waddooyinkooda u gaarka ah ayaa ogaan doona awooddooda qarsoon. kuwa keligood duula, kuwaas ayaa leh baalasha ugu xooggan. kuwa keligood socda, kuwaasi ayaa leh jihooyinka ugu xooggan. kuwa ayaga isku kalsoon ayay u ahaatay guusha. kuwaasi inta ka soo hadhayna waxay weligood ahaanayaan kuwo u baahan dadka. waxay u baahnaanayaan in la dareemo, waxay u baahnaanayaan in la aqbalo, waxay u baahnaanayaan in la aqoonsado si ay u noolaadaan. inaan keligay ahay ayaan ku xasiloonahay, uma baahni in lay dareemo, in lay aqoonsado. sida aan ahay ayaan weli ku faraxsanahay. kuma lihi kuwa baahani way liitaan. qof waliba oo u baahan in la caawiyana micnaheedu ma ahan inuu liito. sidoo kale kuma lihi keligaa ahaw si aad u xoogganaato, balse kuwa doortay inay keligood noolaadaan ayaan la hadlayaa. mar labaad ayaan ku leeyahay, uma baahnid in dadka kale ku aaminaan. haddii aad adigu is aaminto, horay u soco keligaa adigoo naftaada aaminsan.